عليكم ورحمة الله وبركاته. مروي اليوم ضنيال واحد كسر دواتين وروحي ضلك دبلنا إيو أدوينها وديكسر جاره بين كنعاء وحاجة الفيشن كا قد بدأ وجود قرار وركي من حاجة الفيشن كان وحا كمدة مدحونها جمهورية جيبوتي قدومي أقلا حكومة مدن إسماعيل عمر جناية ما تكسي قود جرا مالنتي لبعض بوقشة وكم رايو ودن كايزلاند koox dhakhaatiir ah oo ka socota dalka Masar ayaa tan iyo sidoo soo dhaafnaba ku sugan dalka Jamhuuriyadda Djibouti xagga wararka dawladana weeraro doontaalo ku ugu baanahay habeenkii xalay tolay ku wabaristeen shacabka ku nool caasimadda Muqdisho dalka Soomaaliya xagga wararka caalamka madaxweynaha dawladda Iran Maxamed Ahmadinejad ayaa gaashaha ku dhaftay inuu iska joojiyo ka toobatayo gelinta macdanta uraniumka intaasi waa warkii oo kooban haatan isagii oo dhan بسم الله الرحمن الرحيم وركي الدلك مدحوينها جمهورية جيبوتي قدوميها قلا حكومة مدن إسماعيل عمر جيلي أيام ما تاكوسي قد جيرا مالتي سينا بعد سعودال كوكو مرايو دلك إزرام أو هذا الكوع حقا أولي ودوك لغسو صارنو يقانو تشيوترني أفعلذا وركا سنة وحا دلك إزرام لغسو دري أوري محمد داير حسن جيبوتي مدن إسماعيل عمر جيلي أيام ما تكوجي مالنتي لبعض سعودال كوكو مرايو دلك الإسلام أما إسلام بوغشدا أواتيو الرئيسية المدحوينة كسعودا جمهورية جيبوتي كتب ودن كاسي إسلام وأفضل إنجليسة كبيرا بيتي برفكا مانتا وحا مدحوينة جمهورية إسماعيل عمر جيلي بوغشدا كتبية دان كل الله ودن كاسي إسلام كميد أحبانك يبي ماك بشدا سوساركا تمرتا أوليغا جوتيرميغا لو يقانو بانكاسي الله يرحضو كليبلف وحا وكسو قيمجل دورا شركة مالجلينك مشروع جوتيرميغا جيبوتي لغو قبل الدونو ما لغو وضعي لغو قبتدالك جمهورية جيبوتي كور دمات كسنة كذا لبقم يتبررا مانتا وحمد أعينيها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر جيلي يوفتيغا وقامين ياي بوخشبا خصو مال دونان ورشدا قرنطدا لغادل عليو أوليغا جوتيرميغا إسلامانتا وحمد أعينيها جمهورية إسماعيل عمر جيلي بوخشبا كتبيا حرمين بالحيس أو كلها لا بلكن أيسلاند هو أي كميتها قولت عنكا بيها قلول بلكن أيسلاند maalintii shalay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waqtiga hogaaminayay markii ay ka soo degeen baa diyaaradaha Keflavik la yiraahdo waxa si diiran ugu soo dhaweeyay Monsieur Olafur Crimson oo ah madaxweynaha dalkan Iceland waxaana dabadeed iyada oo labada madaxweyne iyo fuudda labada dalba ay hogaaminayaan ay booqasho ku tageen Hangi oo biyaha geothermiga lagu qaybiyo kaasi oo wali ay ku yaaleen goob radido taariikhda wadankan Iceland iyo madaxweynaha ay ku taalo waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo waqtiga hogaaminayay dabadeed maalintii shalay ay soo booqdeen xarunta laga hogaamiyay isla markaa xafiisyada baaritaanada cilmiga sayniska ay ku yaalaan shirkadda la yiraahdo Reykjavik Energy halkaas oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu hogaaminayo loogu soo bandhigay warbixino fara badan oo ku saabsan shirkadaasi habka ay u shaqeyso iyo guud ahaanba soo saarka iyo isticmaalka winiga geothermiga ee wadankan Iceland halkaas waxa dabadeed lagu kala saxeexay heshiis ku saabsan soo saarka winiga geothermiga ee dalkan jamhuuriyadda Djibouti oo wadankaasi Iceland aqoonyahanadiisu ay fulin doonaan maalintii shalay waxa booqashada lagu soo gabagabeeyay habeenkii xalay ee marti sharaf madaxweynaha wadankaasi Iceland oo u qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti harimo sharafeedkaasi oo labada wafdiga ay ka qayb qaateen waddankaasi uu ka jeediyay madaxweynaha wadankaasi Iceland Monsieur Crimson waxa uu ku sheegay inuu uga mahad celinayo jamhuuriyadda Djibouti iyo Afrika sidii looga gargaaray codbixinadii qaramada midoobay ee ku saabsanaa sidii wadankiisa ay uga saari lahaayeen ciidamada shisheeye oo waqtigaasi joogay madaxweynaha wadankan Iceland Crimson waxa uu kala ku dhawaaqay in uu ka gargaarayo jamhuuriyadda Djibouti xagga horumarinta guud ahaanba siimana soo saarka iyo isticmaalka winiga geothermiga loo yaqaano waxaana booqashadan ay la xidhiidhaba arrimahaasi geothermiga iyada oo jamhuuriyadda Djibouti ay ku tala jirto inay ka faa'iideysato in aqoonta iyo way aragnimada ku saabsan
soo saarka uumigaasi geotermiga iyo isticmaalkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa arrintaasi ay la xidhiidhay dadaalka ugu jiro horumarinta dalka jamhuuriyadda Jabuuti iyo ballanqaadadii uu qaaday waqtigii doorashooyinka dib loogu soo doortay iyo weliba ballanqaadadii uu qaaday waqtigii uu ka hadlayay kulankii u horreeyay ee golaha wasiirada ee sanadkan Maxamed Daahir RTD Iceland madaxa laanta warfaafinta golaha raadiyaha telefishinka ee Jabuuti Xaaji Maxamed Daahir socdaal ku wehelinaya madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelle guddiga sharciyeynta iyo maamulka guud ee qayb ka ah guddiga horumarka bulshada iyo daryeelka deegaanka ayaa maanta shir isugu yimiday shirkaasina waxaa daadihinaya shir gudoomiyaha guddigaasi xildhibaan Suleymaan Namir Cali fadhigaasina ajendaha waxaa ugu jiray mashruuc xeer oo ku saabsan dib u habeynta wasaaradda dhalinta isboortiga dalxiiska iyo tamashlaynta iyo mashruuc xeer oo qeexaya dib u habeynta iyo kobcinta howlaha isboortiga ee jamhuuriyadda Jabuuti fadhigaasi waxaa ka qayb qaatay wasiirka dhalinta isboortiga dalxiiska tamashlaynta mudane Xasan Faarax Midiin oo isagoo faahfaahin ka bixiyay istaraatiijiyadda qaran ee xukuumadda oo dhigtay gaar ahaan kobcinta dalxiiska markii mashruucan ugu horeeyay xildhibaanadu waxay isku afgarteen waxa isweydaarsan doodo ku salaysan dhalinta gaar ahaan isboortiga fadhigaas oo sii socon doona waxa la isku soo qaadi doonaa mashruuc xeer oo wax laga bedelayo mashruuc xeer numbarkiisu yahay 118 soo baxay bishii Janvier 2020 sanadkii 2001 oo dhigaya dib u habeynta lagu sameeyo wasaaradda caafimaadka mashruuc xeer oo ku saabsan xaaladda dadka qaba cudurka sidaada iyo weliba mashaariic kale ayaa la isku soo qaadi doonaa fadhigaas uu doonaan guddiga sharciyeynta iyo maamulka guud ee qayb ka ah guddiga horumarka bulshada iyo daryeelka deegaanka waqti koox dhakhaatiir ah oo ka socda dalka Masar ayaa tabiya sideen soo dhaafnaba ku sugan dalka jamhuuriyadda Jabuuti kooxdani waxa ay ka tirsan yihiin ururka guud ee dhakhaatiirta wadamada Carabta ee leeyihiin lagu magacaabo UGMA rugtoodu ay tahay caasimadda Qaahira ee dalka Masar xiriir wanaagsan ayaa ka dhaxeeya ururka guud ee dhakhaatiirta wadamada Carabta ee leeyihiin iyo jamhuuriyadda Jabuuti oo ay wakiil uga tahay wasaaradda caafimaadka iskaashi la yeelatay guddiga dalka Kuwait u qaabilsan gurmadka kooxdani waxay ka kooban yihiin 6 dhakhaatiir oo ku takhasusay dhinacyada kala duwan ee caafimaadka dhakhaatiirtani markay yimaadeen jamhuuriyadda Jabuuti waxay ku tallaabsadeen howlo qalliin ah oo xagga indhaha iyo xididada waxaana tallaabooyinkaas ay adeegsanayeen qalabka heerka sare loo yaqaan laser waxaana ay jeexeen daweeyeen dad gaaraya 102 qof ilaa iyo 125 qof waxayna ku talo jiraan oo rabaan in ay daweeyaan dad gaaraya ilaa iyo 230 qof hawshaasina waxa ay sii wadi doonaan ilaa bishan ku jirno 22 hawlahaasina waxa ay ka wadaan dhakhtarka weyn ee Beeltay dhakhtarka Balbala wasaaradda caafimaadka la shaqeeyay ay samafala oo dhakhtarada Carabta dhakhtaradaasi waxay ka yimaadeen Masar waxay ka kooban yihiin 7 qof ama 7 dhakhtar lix waa professoro waaweyn oo qaybo kala gedisan ku takhasusay waxaa kamida professor qalitaanka midhaqaraha iyo calooshiyo inta وقيبسن دكتور بروفيسور يسوون لفها دكتور بروفيسور يسوون عندها دكتور بروفيسور يسوون مرحة يوم مسكحة يوم مسكحة عبدوك قالتان كيس يسوون كتخصصي دكتور بروفيسور يسوون انت كليها يوكالي هايستيو انت كادير مرة يسوون كتخصصي دكتور يسوون بيدياترا iyo nimanka kaaliyaha loo soo garanaysid xagga administrationka amba taakulaynta iyo kuma u qaybsan hay'adda samafalka reerkuweyn ee Jabuuti degan iyo wasaaradda caafimaadka ayaa hawshaasi soo qabanqaabiyay oo dhakhaatiirtaasi reer Masar ururkooda dhakhaatiirta Carabta كسودا عياد بدنا إسكسو إنهم كاسي إسكسو بوريه ولسه سيد خاطر تلكم مادة مانتا لح دكتور أو أن قلتان كقول تخصصي
ayaa dhakhtarka weyn ka shaqeeya oo la shaqeynaya dhakhaatiirtani Masar ee yimid markaa waa aqoon isweydaarsi iyo tababar joogta ah weeyaan waxaa maaragtay muhiimka meesha looga dalleeyahay agaasimaha dhakhtarka weyn ee PLT Dr. Maxamed Cabdiraxmaan oo micno faahfaahsan ka bixinayay dhakhaatiirta iyagoo ka socda dalka Masar hadda ku sugan dalka Jamhuuriyadda Djibouti kadibna waxa aan waraysi aan la yeelanay dhakhaatiir iyagoo ka socda dalka Masar hadda ku sugan dalka Jamhuuriyadda Djibouti كانت بالتعاون مع وزارة الصحة وبرعاية معالي وزير الصحة في جمهورية جيبوتي. waxaanu nahay lix dhakhaatiir oo ku takhasusay dhinacyo kala duwan haddii ay noqoto qalliinka indhaha xididada iyo weliba maskaxda waxaanu ku shaqaynaa nidaam heer sare ah oo loo yaqaano qalabka laser waxaanu imanay kadib markii martiqaadanu ka helnay wasaaradda caafimaadka ee Djibouti waxaanu ka mid nahay ururka guud ee dhakhaatiirta wadamada carabta ay leeyihiin lagu magacaabo UGMA waxaanu joognaa iminka dhakhtarka weyn ee PLT waxaanu ku tallaabsanay howlo dhinaca qalliinka ah oo aan ka fulinay dhakhtarka weyn ee PLT iyo weliba ka balbala waxaa howlahaasina iskaashi aanu kala yeelanay dhakhaatiirka reer Djibouti والتواصل ما بين وزارة الصحة الجيبوتية ووزارة الصحة المصرية عن طريق اتحاد الأطباء العرب وبإذن الله مما رأيناه من تعاون ومما رأيناه من تفاعل ومن تواجد من الأطباء ومن المديرين ومن المسؤولين ومن جميع القطاعات نفكر جديا أن تكون هذه القافلة سنويا تنظم سنويا ولكي نورث خبرات ونتبادل خبرات. لقد أجرينا عدة عمليات كان من أهمها عمليات استئصال المرارة بالمنظار الجراحي. sidoo kale waxaanu la yeelanay ninkan oo kamid ah dhakhaatiirta iyagoo ka socda dalka Masar waxaan ku takhasusay xagga jeexitaanka waxaanu adeegsanaa qalab heer sare oo loo yaqaano laser waxaana iminka qalabkaasi kamid yahay dhammaan qalabada caalamka la isticmaalo waqtigii hore jeexitaanku waxa uu dadka qofka la jeexo waxa uu ku guda jiray waqtiyo badan dhakhtarka haddana waqti badan kuma jiro dhakhtarka markaa uu ka baxa balse iminka oo la isticmaalayo laserka qofka isagu jaxo saacada in ka yar dhakhtarka ku jira wixii shaqo uu leeyahay dabadeed oo qabsan kara waxaana uu bilaaban karaa wixii hawl uu leeyahay tii oo wax inaba ka muuqan wax nabwa إلى 15 سنتي أما الآن فتحات لا تتجاوز السنتيمتر الواحد والمريض بعدها يجلس في المستشفى مدة ساعات قليلة وجراحات المنظار عموما هي تطور منذ منتصف السبعينيات dhammaan waraysidaas oo dhan waxaa noo soo qaadeen Muumin Cadaawe Galaw ka tirsan wariyaasha laanta afka Carabiga ururka haweenka lagu magacaabo MBda ay ka jira xaafadda Arshib ayaa ku dhaqaaqay howlo nadaafadeed oo lagu daryeelayo deegaanka dadka iyagu ku nool xaafadda Arshib ayaa saaka u guntaday sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen howlahaasi nadaafadeed ee lagu daryeelayo bilicda deegaanka xaafaddaasi talaabadaasina waxa iyaguna ka qayb qaatay dad mutadawiciin oo ka socda xaafadaha kala duwan ee caasimadda Djibouti waxaana talaabadaasi kala qayb qaatay agafka iyo iskorooyinka xafiiska qalabaynta xaafaddaasina waxa ka jira dhibaatooyin xagga goobaha biyaha ay maraan iyo weliba foosaska biyaha qaada ururkaasi hoose oo ku takhasusay howlaha dhinaca bulshada ayaa maalintii shalay codsi u jeediyay iskaashatooyinka ururada kala duwan ee ku jira caasimadda Djibouti ay ka taageeraan arrimaha ku saleysan xoojinta deegaanka ee xaafadda Arshib iminka ururkaasi uu guntaday sidii dhammaan goobahaasi uga nadiifin lahaa wixii qashin ambaba biyo dhex jeefa xaafaddaasi Arshib iyadoo ku taala xaafadaha caasimadda Djibouti waxaan joognaa halkan waa City Arshib waxaan joognaa howlo badan baa kan jira waxyaalo usarunta martay naga fajiyeen halkan ugu nimanay waxaan ka soo shaqeynay kartikaad ka soo shaqeynay waxaan ka soo shaqeynay kartisiis ka soo shaqeynay waxaan joognaa karti arrinkan arrimo si particular yaan martay aan ka shaqeynaa waayo dhibaato weyn baa ka taala dhibaatada weyn waxa kamid ah waa biyihii oo dusocda dikadihii dusocda taas aan fajiyay ilaahay inuu nala qabtay waan ku guulaysanay biyina dhan maraan ma soo dariiqina dhan ma soo waan dhaxmarna hadana dariiqina biyina dhan u diilay dariiqina dhan ma soo labada dhakhtaradii iyo xaafadii inta dhaxaysana iyo maartay wada hadal aan ku gaarnay odaydii duqeydii maartay xaafadda shafkartiga garab joogay markaa association ururada xagga ku yihiin garab jooga waxaan u malayaa
dadkii maanta haddii wada hadal dhicin oo dadkii maartay ay sheekaysan oo waxaan ganaha dadka inay tahay la iska dhaadhicin dee maanta guushan la gaaray maanta la gaaray bay la tahay maanta guul baa la gaaray dadkiiba iyagoo gamcaha ku mudaraqad la dhacay aqalada dib u durxay kolkii associationadii sheefkaartiyadii waxay macnaayeen waxay la tahay hadda toban xaafadaha kale iyo marka shaqada ma qabanayna waa in ururada maartay iyo sheefkaartiyadii waxay hawsha soo mara galaan example ay noqotaan xiba si kaartiyada kale ururada duqeyda xaafadaha ay hawlan mara galaan waxa u maleeyaa inay hawlan loo dhibeeyaan marka hadii ilaahay agaasima ku-xigeenka xagga daayacatirka mudane xuseen ismaaciil asawi kadibna waxa aan waraysanay aan la yeelanay haweeneyda gudoomiyaha ka ah ururka NBda Marwo Faaduma Xamadu watahay daawadayaal ku soo noqon doona qodobkaasi wote kadni hasisikeni esna nanabna maise on instant an dogom Marwo Faaduma Xamadu hooyadu ka ah gudoomiyaha ururka NBda waxay sheegtay inta labadan ay tahay mid lagu nadiifinayo hidilaba xaafada Araxiba waxaana ay sheegtay in si weyn uga soo qayb qaateen ururka lagu magacaabo NBda talaabadaasi waxaana Marwo Faaduma Xamadu tiri waxaan u mahadnaqayaa xafiiska farsamo ee TP-ga oo iyadu dhamaan hawshaasi lagula garab galay wixii awoodooda soo bandhigay hawlaha aan ku jirnay xagga nadaafada shirkadda lagu magacaabo Faraktaxi ayaa gaarsiisay laanta ciyaaraha fudud ee Djibouti deeq kuwan iyo bilado isugu jira deeqdani oo qiimaheedu uu dheeyahay 1 malyan oo faranka Djibouti waxa gaarsiiyay laanta ciyaaraha fudud ee Djibouti agaasimaha guud ee shirkadda Faraktaxi Monsieur Madise deeqdaasina waxay tahay mid lagu abaal marinayo ordalintii kaalmaha war iska soo taagay orodka caalamiga ee nus marathon 22 kilomitir ee maalintii Jimcaha soo dhaafnay ka dhacay garoonka ciyaaraha Stade Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon oo ku guuleystay Alex Maliga oo ridaha ku dhashay dalka Uganda munaasabadaasina waxa uu jooga ka qayb qaatay gudoomiyaha laanta ciyaaraha fudud ee Djibouti kabitaana Saciid Cabsiyada waliba tababaraha ordalinta dalka jamhuuriyadda Djibouti shirkadda Faraktaxi ayaa kamid ah sponsorada ugu horeeya gacan ka geysta horumarka isboortiga dalka jamhuuriyadda Djibouti xagga wararka degmadana weerar dantalo kuwii ugu baanahay habeenkii xalay ay ku waabariisteen shacabka iyagoo ku nool caasimada Muqdisho ee dalka Soomaaliya faalada warkaasina waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahana naga soo warama magaalada Muqdisho Mukhtaar Maxamed Hiraade weerarkan kale kuwii badnaa ayay ku waabariisay xalay magaalada Muqdisho jantalahaasi oo jeestada mas'uuliyad iyo tabarruc inta loo yahay iyo dhaawacaad fara badan waxayna jantalahan isugu jireen madaxweyne ka dhawaysay qaliga DMka iyo hooyayaal badan ka soo dhacay fariisimada ciidamada dowladda ku meel gaarka iyo kuwa Itoobiyaanka abaari sidii nimaa xalay ayaa sida ay tilmaameen dadka deegaanka xaafaduhu kooxad sheeganaya wax iska caabinta oo isticmaalay baabuurkii kaaba oo mushaarayay qariga hooyaha waxa ay weerar ku qaadeen fariisimada ciidamada dowladda ku meel gaarka iyo kuwa Itoobiyaanka ee ku yaala تيسير إلى ملا غلب تسلية إسبيتال كدكتور taasoo sababtay inay jawaab ka bixiyaan ciidamadu isla xalay kamid ayaa ina kooxahu waxay weerar kale ku qaadeen xarunta madaxtooyada iyo weliba markada muqdisho ayadoo sidoo kalena ciidamadu ay markaasi uga jawaabeen gantaalaha ay dirigayeen xaafadihii gantaalaha laga soo tuuray madaxtooyadan dambe ayaa waxay socotay ilaa iyo shantii aroornimo ee saakay waxa ayna badankoodu ku dhacayeen qaybo kala duwan oo ka mid ah degmooyinka wardiidley yaasiin murugaa iyo weliba degmada hodan inta la ogyaana 10 ruux ee ku geeriyooday xalayka madaxtooyada Kasakow waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 50 ruux oo ku yeeshay ka mid ah xaaladooda ay liidato sida uu noo sheegay dheer oo ka mid ah mas'uuliyiinta isbitaalka Madiina inkastoo waqtigii aanu ku sugnaan isbitaalka aanu arkaynay dhaawacyo ka mid ah kuwii xalay madaxtooyada ku soo dhaawacmay oo weli la keenayo isbitaalka waxaa ka jira goobo kale oo caafimaada iyana si gaara loo leeyahay iyo weliba isbitaalka Kaysare oo iyana la geeyo dhaawacyo aan intaana ka yarayn Mukhtaar Maxamed Iraade RTD Muqdisho xagga wararka caalamkana madaxweynaha dawladda Iiraan Maxamed Ahmadinejad ayaa gaashaha ku dhaftay in uu iska joojiyo ka tago barnaamijka tayagelinta macdanta uraniumka ee dalka Iiraan hadda ku tallaabsanayso
madaxweynaha dalka Iiraan Maxamuud Ahmadinejad ayaa gaashaan ku dhuftay codsi qaramada midoobay kaga yimid oo rabto oo ku wajahan joojinta tababarida maalinta uraniumka madaxweyne Maxamuud Ahmadinejad waxa uu sheegay in nabad joojin doonin hawlaha ku salaysan xagga tababarinta maalinta uraniumka ee dalka Iiraan hadda ku tallaabsanayo waxaana uu sheegay cidii danbaansata in ribaaxo kulmayno kulmi doonaan hadalkaasi ayaa ku soo beegmay xilli ay kulmayeen ninka وحل صار الوضع نيكليركا علي الاريجاني iyo agaasimaha hay'adda caalamiga ee tamarta atomiga Maxamed Al-Baradi oo ka wada xaajoon doonaan ariga ku saabsan hubka nuclear-ka ee dawladda Iiraan wararkuna waxay sheegayaan in ciidamada dalka Iiraan tan iyo muddo fara badan bay ku guda jiraan dawlad military waxaana ay tijaabiyeen miisilada miisiro kala duwan iyo weliba gantaalaha dhulka hoostiisa mara dhinaca kalena ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale iyaguna xoojiyay howlaha ku salaysan xagga militariga waxaana ciidamada Mareykanka ay fadhigoodu yahay Afghanistan ay soo dhigeen la soo degeen markab xambaaraha diyaaradaha waxaana ay sheegay ciidamada Mareykanku in haddii lagu amro in ay fuliyaan awaamirta ka soo baxa Pentagon in ay ku dhaqaaqi doonaan Ces opérations se déroulent en tout cas sur fond de renforcement du dispositif américain en mer d'Oman. La 5e qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay waruuxii dalka degmada iyo adweynaha wadiga soo gaaray habeenkani caawa xagga telefishanka inta dib u kulmi doono dhammaantiinba meel ka soo joogtana laga daawanaysan waxaan iga tagnaa nabadgelyo iyo amaana Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh